وبركاته ومركز برنامج كيني كالي شاهي لعب عاوة حمرتنا هو أحمد توحيد أحمد توحيد سولو مركز aad baa umahadsantahay cabdifatax aad baa umahadsantahay barnaamijkan kaalay shaahi lacab runtii waa barnaamij qiimo leh aad iyo aad baa إن شاء الله umahadsantahay من بلط masha allah bismillah masha allah shahaad macaan wey shahaad macaan wey umahadsantahay هذا ما صدق أحمد توحيد وأنا سياسية بل أحمد بردت مرة هوريس برب بسم الله بسم الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أما بعد cabdifatax walaal waa run anigu siyaasaddan anuu yar baan soo galay 15 sano ka hor yaraan baan kusoo galay waddankanna waxaan deganahay weliba magaaladan Helsinki ilaa hadda waqti gaadhay 28 sano siyaasaddan markaan soo galayna yani waxay iska ahayd runtii yani maadaama aan arrimaha bulshada aan xiisayn jiray oo aan rabay inaan saameyn ku sameeyo bulsho cusub aan ku noolnahay taas ayay ahayd xisbiga ARKOB ayaan ku jiraa oo runtii aan xilal ka duwan ka soo qabtay doorashadii ugu horeysay aan galay waxay tii baarlamaanka 2011 waxay igu xigtay tii kale oo 2015 ee baarlamaanka markasta hankeyga iska weynahay oo baarlamaankan xoog saari jiray marka 2017 doorashadii deegaanka kumaan jirin wanigi ka tanaasulay 2019 tii baarlamaankana maan soo gelin الله مستعان هذا لو كنا كوي لا تنكح أيام هم تاجنا حلك قلها ديرانك هلسنكي ما شاء الله بروح أنا ورا أحمد سيدا ودن كنت مي أنت على كيد مثلا بطريقة غيره أو بنتقدنا على أساس تكلي أنا هين عرفت على ورنا تدي ودن كان إنه ودن كان يمركو بربري أنا هضن أيام كسوكري حمرنا أقول أشتي أكشلي كبعد مركو ذاكي سكايا صوماليا كان حي halkan aan toos u nimi bilowga sagaashamaadka waddankanna markaan imaanaynay isbedel adag ayaa ka socday runtii oo waxa ahayd waqtigii sagaashamaadkii dhaqaalaha adduunka isku xumaa khaasatan dhaqaalaha Finland aad buu u xumaa xilligii Sovietiga oo ay burburtayna way ahayd anaguna runtii Soomaali ahaan markay noqoto dad soo dhaweyn fiican la kulmay maan ahayn waagaas sababtoo waxaan ahayn dad madow ah muslimiin ah waqti xun oo ku soo aadnay runtii oo Finnish waxay yaqaanaan taantumada dugsiga dhexe Helsinki inta Helsinki ayaan weligeed deganaa oo meel markii ayaan kasoo bilownay bootila ayaan beruska uga ka dhigtay ka bacdina dugsi sare ka bacdi jaamacad marka maxamed haddaan soo yaro koobo anigu waxaan haystaa waxa loo yaqaano yani MBA-da ama Kauppatieteiden master waxa Finnish lagu yiraahdo shahaadada labaad ee sare 12 sano ugu dambeeyna waxaan ka shaqeynayay arrimahan ganacsiga iyo shaqaaleysiinta suuqa shaqaaleysiinta qaabka xal loogu heli lahaa dadkan shaqada soo galaya waxa loo yaqaan yani two elemada sidii toos loogu gali lahaa marka alxamdulillah hawsh meel fiican bay maraysaa waxaan aaminsanahaynaa dadka Soomaalida ah ee Finland ku dhaqan runtii waa dad u bisil maanta inay saameyn ku sameeyaan waddankan sababtoo ah waxaan nahay dadka kaliya oo cunsurinimo dhab ah soo arkay Yurub يعني ودكتور عبد الفتاح هو يعني واجي هره أضو وضد مريا يا لو رد يا لما يقعد نقول تجي لو أفلق عديني الشقة دي مال كستا يعني نبكى إنه صوم مري إني ما أنت يعني وناكي دي إنه هلو حقا ولا أنا مسانة مسانة هو وعرف يعني وحروا عم صح صوت أرين كشقة مالنا ذو متغانا فيسبوك كسوق قريين متغانا لين هذا تربون أو صومالي وتكدين هذا شغالي سيسي أرين كانوا حيريسن لأنه فاهم عبد الفتاح ورون أنا صومري يعني شركة بان واحد أنا ويلك فينيشان شعبة اللي يجمع يعني شركة أساسنة لو ضبط نستوديو توكي شعبة ما كان قرية تيسيس وحنا كقرية مادنا استراتيجيك مانجمنت تيجا قابكي يعني ضد كان لو شقة لسين لها جانب كلية ما يعني ضد كان حتى دي بدك إيمانية شركة ضيض أنا حفيز وحنا كلنا هاي يتكسكس ماشان إيرس لهذا يعني هذا شنتي سنة قدام بيسي عند جنين بقى Soomaali kaliya ma ahayn yani cid kasta ku jirta ilaa hadda dad 22 nationality oo kala duwan oo waddan kasta ka socda ayaa xafiiskayga yimaada oo shaqooyin aan loo shaqeynay inkastoo hadda bade cudurkan uu saameyn ugu sameeyay soo waddanka oo dhan ba ama dhaqaalaha adduunka ama bulshada oo dhan buu saameyn ku sameeyay laakiin anaga hadafkayga waxa mar kasta inaan noqono shirkadda lead karaynaysa xagga shaqaaleysiinta ajaanibka iyo dadka dibadda laga keenayo alxamdulillah tiina waa ku guuleysanay oo ilaa hadda shaqadu way socotaa markay dhamaato waxaan cudurkan laga baxay insha Allah oo dhaqaaluhu dib u soo noqdana waxaan rajaynaynaa mashaariic ka waaweyn oo sida shaqaaleysiinta dadkeenu ay ka faa'iideeyaan inaan u soo hirgelino ما قال لي رئيس إكسكت اللي هي شركة دينو هي شغالة سيس
والله إني أقدر ترى عن حسوسته ده السنة كي مركز مشروعي ده كل حدا طاي لكن ده كمان كمان جاري يعني دي بلوغ نقطة الدنيا ما هي وضد أضو مركز ربنا سوق شغل سوق ضد كل حرفة دون كل شهادوين ضد لوقا كل دون كوه الله يعني وإن بحيل ضد كل سعره ضد كانوا runtii saan sheegayba jiilka hadeer jooga waa jiil ka muuqan doona dhowrka sano soo socda suuqa shaqada ee Finland oo runtii hadday noqdaan inay engineer noqdaan ama waxa loo yaqaan virka miyahay xafiiska walaad in Helsinki Carbonki oo kale ay galaan oo shaqaalaha ay ka qabtaan maanta ma haysano Helsinki Carbonki yani marka la fiiriyo dad Soomaaliyeed meel sare ka jooga way tirsan yihiin dhowr xabo weey inaynu yani taa xataa aynu ku dheeri karino marka shaqada inaad Finland shaqo ka bilowdid way adag tahay runtii oo anaaba soo maray waxa aniga ugu kalifan waxay shaqadeedii ugu horeysay aan samar dalbado 2002 bay ahayd samarka markaan garanaysaa marka lugteeda laga soo baxo aad wiil yar tahay aad rabtay inaad shaqo gashid dee waagaa waxaan la kulanay dhibaato badan oo shaqada kaliya aad helaysid waxa ahayd inaad CV noqotid taasaaba lagu dilay oo markii dambe xataa magaca loo bixiyaa kii kale la oran jiray waa CV waxa laga wadaa dhulxaq waxaan xasuustaayo shaqadii ugu horeysay lagu qoray ahayd itakasus metro CV oo asaan ugu faraxsanaana ana ogsoonaa marka yani Soomaaliya kuma amaade nin shaqaysto un baa shaah cabba marka waxaan rabnaa in dhiirigelinta shaqada in xooga dadka lagu saaro aynu wadankana noqono dad cashuur bixiya ayna noqon dad cashuur qaata marka anaga hadafka u socono waa kaas weeye arrin fiican waxaan rabaa su'aasha kale aan ku weydiinayaa maxaa kuu kalifay bal inaad siyaasadda soo gashay أنا عاد فتح ولا هرتا سياسة دا وحبان بيقول كلي فرنتي أو إلى يرانتي دي dadku waxaan suugaanta iyo taariikhda aad u jecel baan ahaa aniga aabahay Allah yarxamo nin wadaad u ahaa siyaasad shuqul kuma lahayn laakiin xaggan faamiga abtiyaasha iyo xogaa waxa ahayd bulshada taariikhiyan xataa Soomaaliya qayb ka ahaa sida ahaatay markaan Yurub imina waad dareemi kartaa wixii aad qalbiga ku haysay inaad meel ka bilowdid alxamdulillah nasiib waxaan yeeshtay anoo yar inaan xisbigan aarko beegalo gudoomiyaha dhalinyarada aan ka noqdo aan waliba taariikh ka sameeyo Helsinki kabacdi golaha dhexe xisbiga galo kabacdi aan asxaab badan ku yeeshto wadankana sidiisa Cabdi Fataax siyaasadiisu waxay ku dhisan tahay aaminaad in lagu aamino inaad network ama verkosto waxay dhahdaan ama xiriir weyn aad leedahay iyo inaad arvot waxde principle ama mabaadi aad ku shaqeynaysid aad lahaatid ana intaasaan isku dayay saddexda inaan dhiso mid kale jirto runtii oo siyaasadda Finland ay ku dhisan tahay يعني qofku musharax uu noqon karaa oo dastuurka Finland ayaa xaq u siinaya inaad musharax noqotid oo aad soo sharaxid laakiin inaad siyaasi saameyn la noqotid waqti dheer bay qaadanaysaa sida 10 sano 15 sano waqti bay qaadanaysaa anigu alxamdulillah intaas oo soo samreeyo hadeer waqti dheer ayaan kusoo jiraa guulal badan waa ka gaarnay xaggan suuqa shaqada oo kale yani online baan u sameeynay oo ma ahayn kaliya inta shirkad iska footay lahayd dadkana shaqaaleysiya waa barnaamij aan intaas soo ka soo shaqeynay oo xisbiyada kale xataa aan table-ka u saaraynay aan lahayn wax naga wada dhaxeeyo weey oo bari ka maalin wad ogtahay wadanka dhaqaalihiisa hadeer hoos ayuu socdaa wuxuuna ku tiirsan yahay yani national economy wuxuu ku tiirsan yahay yani dadkan cashuur bixiyaasha dadkiina hadda waa sii yaraanayaan beeshi bay noqonayaan wadka warhaysa oo qaybaha caafimaadka aad ka shaqeeyaba yani isbedelkaas inaynu qayb ka noqono ayaa runtii anigana markasta dhiirigelinaysa tan kale hadda igu soo celisay haddaan galo doorashada deegaanka deegaanku isbedel weyn baa ku dhacay oo waagii hore go'aamada ugu badan dowladda dhexe ayaa gaari jirtay laakiin hadda waxaa socda barnaamijkan la yiraahdo kunta kokaylo ama yani in magaalada yani degmooyinka tijaabooyin lagu sameeyo servisyada qaarkood hadda saad ugu soo taayba kowda bisha saddexaad isniinta hadduu ilaahay dhaado waxaa bilaabanaya tuelisus balvalutka qaybtii shaqaaleysiinta in Helsinki Carbonki la wareegayso sidoo kale social balvalutka yani isbedelkaas oo dhan oo magaaladu gacan ku dhigayso dadka ugu badan service-ka qaatana waa inaga waxa lagu tilmaamayaa Helsinki inay degan yihiin 10,000 qof 10kaas يعني maxay noqonayaan dad macaamiil mise dad iyaga go'aamada gaaray noqonayaan marka isbedelkaas xawaariga ku socda 10,000 qof oo Soomaaliya dadka lagu Soomaali ku hadla oo marka statistics la fiiriyo yani in la fiiriyo yani isbedelkan ka socda magaalada inuu qayb ma ka nahay runtii waan dareemi kartaa hadeer inay wali ayna la socono hadeer arki doontaa marka la soo waco la yiraahdo carruurta waliba dhalinyarada soddonka ka yar shaqooyinka xooga lagu saaro dadka waaweyn la yiraahdo waad shaqeynaysaan hadhow inaynu dhaha kala qaadno waad ogsoontahay cunsurnimo qarsoon ba hadeer socoto cilmiyeysan
oo waad ogeyd waagii dhaweyta corona markuu bilowday la yidhi soomaalida keentaa oo xisbigiina keenay maanta weliba dadka qaarkood ololo u wadaan ay leeyihiin xisbigana noo fiican waad ogeyd marka hooyooyinkeena ay hooyadii oo shaqaysa ilmaha vaanka bahalka carruurta lagu riixa ay gadato la yidhaahdo caydha u gada yani waxyaala qofka niyadda ka jebinaya oo maala yacniya marka aniga waxay ugu kalifay waxa weeye maaha inaan siyaasi noqdo laakiin inaan bulshadan saameyn aan sameeyo oo wixii markaa awoodaydu ah ballanqaadkayguna uu yaraado oo dee waxaanan aanan ballan qaadi karin kii ilaahay quraankiisa kule waa awfu bilcahdi ina alcahda kaana mas-uula yani waxaadan ballan qaadi karin inaadan qaadin laakiin wixii marka awoodayda iyo khibradayda iyo dee dadkan dhinac taagan aan xooga ku socdo fiican aad u dhigtay markan waxaan rabaa inaad bal xisbiga aad u sharxan tahay inaad bal soomaalida u fasishid oo mataqaanaa mabaadidiisa iyo wixiis oo dhan بسم الله محمد waxaan leeyahay xamdi fitax waa run weyn walaal xisbigan kulliba soomaalida badankoodu way ka dharagsan yihiin sababtoo aniga wejiga garanayaan oo ilaa inta aan siyaasadda ku jiray xisbigan waa xisbi dadka laga tirada badan yahay markasta uu dooda waa xisbi liberaal ah waa xisbi awood ku leh wadamada nordic ah maadaama luqadii swedishka xiriiray uu yahay waa xisbi runtii international markay noqoto dee safiirada wadankan ay magacaabaan iyaga awoodda badan ugu leh waa xisbi xagga dhaqaalahana ka dhisan oo saad u ogsoontihiinba hadda suuqan shaqada ama shirkadahan shaqaaleysiintana sameynaya dee aniga waxay riixaya xisbigayga riixaya waa xisbi xaggan xuquuqda bini'aadanka marka loo doodayo dee markasta qayb weyn ka qaata sida hadeer dadka bilaa sharciyada ah aniga xildhibaanadu waxaa noo joogta arrintaa ku takhasustay dee price waaweyn ka heshay ilaa Hillary Clinton ka heshay Eva Biodet oo arrimahan dadkan hadeer bilaa sharciga oo maalgeliska xoog weyn ka qaata 2017 shir baan waxaan ku qabanay baarlamaanka aan arrintaa ka hortag uga sameynaynay runtii waa xisbi dhinac kasta ka dhisan laakiin anigu axmed ahaan waxaan aaminsanahay axsaabta waddankan haddaan adigu aadan diyaarsanayn oo dee kalsooni lagugu qabin oo dee waqti dheer aadan kusoo jirin oo bosishino lagugu soo tijaabin way adag tahay inaad saameyn ku samaysay aniga alxamdulilah taas ayaan u samreeya waqti fiican usoo gaadhay marka xisbigan runtii dee waan isla jaan qaadnay oo hadda xataa waxaan ku tala jirnaa waddankii inaan xooga saarno mashaariic way jiraan hadda cusbitaal laga furay 2017 hargeysa laga furay dhakhtar soomaaliya oo dee ku takhasusay lafaha ku takhasusay doctor cartan iyaguna qayb bay ka qaateen oo dee loobinka way ku jireen marka waxyaalo badan runtii fursado badan ayaa jira aan isleeyahay dadkeena uga faa'iide waddankan aan ku noolnahayna aan uga faa'iidaysano waddankeeniina aan uga faa'iidaysano waa arrin fiican markaad fiiri sidoo kale hadda waxaa sharaxan helsinki 4 qof صح mas dhihi karta afartaas aad bay u badan yihiin dadka jooga mataqaana Finland ama helsinki jooga inay u wadayaan أتفتح حرت waxaan dadku waxaan aaminsanahay yani dastuurka Finland ayaa qofka xaq u siinaya inuu isoo sharaxo sidaan hore u sheegayba musharaxnimadu deegaanku way fududahay marka loo barbardhigo baarlamaanka deegaanka xisbigu inuu ku buuxsado 128 musharax inuu yani ku buuxsado way liiskiisa inta uu helayana uu isleeyahay waad heli kartaa musharaxiintaasna waxaa laga yaabaa inay 8 tiro yar oo kooban yihiin laakiin inta kale waxay u yihiin taageero yani iyaga caawinayaan marka innaga waxaa loo baahan yahay inaynu Soomaali ahaan dadkeena codaya aynu fahanno waxaynu rabnaa musharax aad ku taageeraysaan cod yani qof kale oo finisha ama inaga ahayn inaad codkiina ku taageertaan birina aydan la xisaabtami karin mise waxaad u baahan tihiin qof Soomaaliyeed oo ogsoon inuu booska helayo inaad ku taageertaan codkiina beri ka maalin saabtaad yani iskula xisaabtaan marka fikirka yani guud marka laga fiiriyo waxa weeye qof kasta uu sharxi karaa laakiin in qofka uu barnaamij siyaasadeed la yimaado uu yiraahdo anigu waxaan aan qabtay waxaan rabaa inaan qabto يعني قفك السي في سوى ما هذا مركز شقة البني ست سي في على آخرنا وحلا قفك ده بسيشك مكبح كرا يعني إنه حتى إنه حدودك كعنو أو ده أولين تن عن كل سنين عن حقيقة كل سنين أنت مكتبنا إنه حقيقة تعاون سببتها في اللي أمريكا نشوفنا أنا من الصومالي أنا أدور من الصومالي أتا إسكو إندهم بنروح فيرنا يا إنه مستقبلك عروتي إنك فكرنا هو يمكن أيام ما أنت ماشي كنت يعني نعكس عقبات ويجران واحد بدنا بوزيتيف أنا وينه هيسنا marka in bal dadku ay sanadkan xisaabtamaan ay yiraahdaan anaga codkayga meeshan isku geynana si qiimuhu ay u bataan si fiican aad u dhigtay marka waxaan rabaa inaan su'aalo maxaa rajaynaysaa sanadkan alxamdulillah cadfata horta hadda waxaa dareemaya inaan ku jiraba already yani markaan arkay dee bulshada taageerada dhinac kasta hooyooyinka yani walaalaha gabdhaha dhalinyarada waddanka kortay yani markaad nasatidna wax aad qabatid sababtoo ah shaqaaleysiintan aniga campaignkan maan bilaabin hadeer
2015 markaan tii baarlamaanka aan ka degay markaasaan bilaabay hawsha marka inaad dadka kasbato dadka qulubtooda aad geshid way fiican tahay dadka kalena dee inaan iyagana soo jiito aan wax la taaban kara aan tuso oo runtii dadkuna aysan qabiil iyo qabyaalad aynan gelin ama hebel baanu saaxiibanahay iyo hebel baanu wadanahay qofka waxqabadkiisa iyo cv-giisa iyo shahaadadiisa iyo yani wuxuu tari karo ay ku qiimeeyaan taasay cadaalad ku jirta tan kale aan aaminsanahay waxa weeye wixii la ii qoray yani qof iga horsaagi karaa iska يعني إلهي وكي حديثك لها يعني النبي محمد عليه الصلاة والسلام كي حديثك لها يعني هذا أمة الله نسكو تقطعنا الربعين وحكو يالان كمية اللي كان هذا الربعين إنه يكون أجيان يعني كمون أجي كان حدوثا إلهي يكون قرن مركا لكن هذا الرشدو آد وفي عنتهاي وفرتي يعني أريد وحمد دريمي يعني كنت شرب ما شاء الله عارف يعني waxaan damacsanahay barnaamijkan mataqaana kaalisha ilaac in mataqaana aan ku soo casuumo siyaasiyiin kale oo mataqaana u tartamaya golaha deegaanka mataqaana wixii aan ka dhignay dowladda ka dhignay oo soo horfaysto la doodo arrinkaas ay u aragtaa horta wax wanaagsan weeye in la wada hadlo la wada fadhiisto la wada xisaabtamo aniguna waxaan jeclahay in waddankan degannahay xisaab baa lagu kala baxaa ama tilasta wax la yidhaahdo qofkuna hami wuu lahaan karaa wax wuu qaban karaa laakiin qaacido waxaa jirta maraykanka laga isticmaalo marka qofku campaignka soo gelayo ah يعني will I vote for me أنا مسكو عضين كرا قف إنه مركو ليس سؤاله أنا مسكو عضين كرا كبعدي مركو تايس ويدينا ويلا هذا ده هذا مسكو عضين محان قابن كرا يعني لكن هذا إسكان نقطة دي أنا مشرح وانا حي وديسين كسو تشرنا لا قصو بلا لابد كوني سديتي لابد كوني لابية طبانكي لابد كوني تطوي طبانكي مشرح وانا هاي يعني إلا يسويديا مشرح لماذا هذا محاكو حيقا ساد وكسون تهب يعني ماشان ضد PhD هايستا أنا وهر dad khibrad u loo qaabka xataa loo wada hadlayo aysan ku filnayn kaliya yani faham dheeraada u fahansan waaqica socda iyo meesha loo socdo yani abaabulka xataa qaabka loo sameynayo in la qurxiyo oo la yiraahdo anagu hadaan qofkan wadano qofkan aan wadanaa waxaan ku ognahay takalo ugu muhiimsan waa aqeedada yani maanta waxaan nuusan aqeedadeeni islaamiga ahayd caruurteeni kalimatu laa ilaaha illa allah inaysan macnayn karin yani hadaa marka siyaasadda galayso qofku waa inuu kala saari karo حزبيا واحد جرام حزب كجرو ده بقول سنة ومريا يعني بقول سنة وجري أنا قدام وضع كسي شوغن وسي جريا لكن هنا أنا مكمل من ودي عقيدة ده إلى صدق لكن هتروح على سرعة المبدأ حزب جاس ينوف يعني يا كل شيء أنا حزب جاس كوف يعني شيء اسمه لقل يعني إنه يدوس كحتى سويدين لكن وان سولو وين يعني إن الله وضح الله ودي علق وضح الله لكن ده اسكن نقطة والله الشرعي ودي والله فلسطين معنا كسب هنا. ما هو برنامج دولة جينا هاو تندي أما السياسة مثلا السياسة سوفري سياسة ضد كحول قبل سنة باش برضو كردوين والله برضو مش رايحين تعزب كردوين نينا دي وحقبت كيسان مقضى أنا الحمد لله ما أنت وحقبت كيسان مقضى يعني وحقبت كي ومقضى waxaan qaban doonana dee waa qeexan yihiin laakiin waan jeclaan lahaa walaal Soomaaliyeed oo yiri waxaasaan qabtay waxaasaan rabaa inaan qabto inuu meesha soo fadhiisto oo cilmiyeysan oo dee oo qofka bini'aadamka xataa dhageysan karo oo qofka xataa codeynaya uu ku qiimeyn karo laakiin inuu iska dayna dee critic baa iska ahaado laakiin saasaa la yiri ama xisbigaasaa la yiri inaynu iska dayno aynu maxaynu dan ah aynu xoogga aynu saarno أنا وسنت سؤال شنكر حرب إن متخانا هدول هو قولي سو بحدي ما حاجة عشان القبلتي سيدا ما وصلنا لنا بدنا حاجة متخانا وباهن متخانا وجدت كتات أجن أو متخانا وباهن وحلو غبطه ما حاس لا يقوم إذا عرفت حوجي نسرتي عرفتح أروح أرتني عقبضهم وبديهن دلوقتي يمكن هيستنوا وبديهن إله نجا قاعدين يعني هدف كان أنا بص عن رنتي أنا كان بينكي وحوي أنا بشيل صامي بصمينا وفطور شكلية معها إلى هندرا سعني حافظ كسته ولا سوق لنا هلسي جدا سومالي دقنا رنتي قام فرنا يعني وصل دوين وان ورئيسنا حق في عوام كقارني وحنسكت هنا مركب برنامج كسياسة ده عمودنا إن صامين وصمينا أنا صدق مهم يبغى وحقا شغالة سينتا iyo kan ganacsiga ururta isuuska la yiraahdo in dad shirkado loo hooday wadanka la jaan qaadi karo awood loo wax soo saar noqonay inay noqono iyo tan kale ah yani caruurta iyo dhalinyarada sidii loo horumarin lahaa ama last year north in hubi pointiga taas markaa waxay tahay tan ay furuhu markasta ku xiran yahay marka in kutiga la iska ilaaliyo ilmihii in cunsurnimo lagu sameeyo yani wixii u baahnaa taageerada u baahnaa dhan uu helo in hadhow markuu iskuulka galayo ilmihii lala socdo la jiheeyo lala taliyo in ilaa intuu dugsiga sare markuu ka baxana xataa
laga istaago siduu jaamacad u geli lahaa ama wuxuu rabo yani potentialkiisa laga soo saari lahaa lagu taageeri lahaa heer hadhowtool markuu jaamacad noqdana dee mentor loo sameeyo dee maanta waxaanu bilownay barnaamij mentory oo hay-adma ah oo dee yani dhalinyarada 18 ilaa 25 sidii loola talin lahaa oo dee ay jiha fiican u qabsan lahaayeen marka anigu barnaamijkaygu wuu ballaaran yahay laakiin inta ugu muhiimsan waa inta anigu khibrad u leeyahay awooddeeduna ay tahay aanan aaminsanahay inaan saameyn ku samayn karo 4 sano aan meesha fadhiyo weliba qorshaha iidiga waxaa 2 sano ugu horeeya inaan saameyn dhab ah aan geysto alxamdulilah taana dee culimadii hooyooyinkii bulshada rayidkii sportigii dhalinyarada sportiga dhinac kastana way ila garagabtaagan yihiin taasaa ii fududeynaysa marka inuu barnaamijkii hirgalo si fiican barnaamijkeena waa nooka gabagabo marka axmed maxaad ku dari lahayd intaas horta cad fitax waxaan ku dari lahaa walaal horta aad iyo aad ayaan kaa mahad celinaya inaan kusoo booqday adigana horta dee waa kaaga tahnideynaya yani magacaabista lagu magacaabay wakiilka u fadhiya arrimaha dhalinyarada iyo sportiga galmudug u qaabilsan yurub qaaradda yurub u qaabilsan waana aaminsanahay walaal ka soo bixi kara inaad tahay sababta aniga intaan helsinki u aqaanay nin waxtar leh akhlaaq leh deganaan leh oo runtii markastana ay kaa gooneed inaad sportiga saameyn ku saameyso un baan kugu aqaanay anigana axmed ahaan dee nin sporti aan ahaan jiray finland waxaan ahaa tababarihii ugu yaraa 2001 soo baray baan ahaa marka taana waxaan jeclahay walaal dee wixii aan kaala shaqayn karo oo dee oo karaankayga ah oo awoodeyda khibradeyda inaan kugu saacido walaalaha galmudugna waxaan ugu tahnideynayaa yani inay maanta walaal fiican haystaan oo arrimaha kala shaqayn doona yurubna way ballaaran tahay marka cad fitaax anu gacmo furan baan kugu soo dhaweynaya wada shaqaynna runtii diyaar baan kuula ahay anoo runtii qiimeynaya yani dadnimadaada iyo kartidaada kugu qiimeynaya aaminsanahayba walaalada kusoo magacaabay oo wasaaradda ah iyagoo ku aqoon inay ku garteen oo annagii finland joognay oo dee habeenii maalin aynu isla joogno masaajidada kuwa tukano kafeega isla cabayno kubaddi wada ciyaarayna walaalada sportiga finland waxaan ka codsanayaa inay walaalka ay mansabka ku taageeraan dhinac kasta u garab istaagaan sababtoo berri ka maalin markuu isagoo xataa ka dego walaalkala qaban kara oo baahi u baahnaan doona hiil yani inaynu isku hiilino yani anoo ku farxay runtii waa arrin ii wanaagsan oo dee maanta way iga fududahay inaan cabdifitaax soo wacan ku dhahniyo arrimaha sportiga galmudug arrintaasaan uga baahanahay oo sababtoo connectionkaynu haysanaa ka weyn marka waxaan leeyahay reer finland waad guulaysateen insha allah adigana walaa wax ku rajaynaya ilaahay inuu kuu fududeeyo soomaalina kuwa ku oran jiray dee nin xil qaad eed qaad marka kulliba eed badan waad arkaysaa u samir insha allah haddii leeyahay diyaar baan u ahay barnaamijkeena noo soo taxnaa waqtiyadii ugu dambeeyey waxaan kusoo gabagabeynayaa aad iyo aad baa mahadsantihiin axmed adoon